السلام عليكم أخيارتا كحران سومالي أم كسدوا هذا الفيديو عصب أو عن سجود وواحد لدونه تاريخ ذا فيرتا همبليو فيريانا سوماليت وجهرين ما أنت أو لواتن تدود بيش سديد وحي كوبيجان تاي مالنتا عالمية فيرتا دونك تاسو أي كسرتي هذا أي بلواتن لوضع بيش تدود أو أي كنتي ما أنت أو لواتن سديد لواتن تدود بيش سديدات أي بواهيات وحلسارن عيارها فيرتا الدنيا ده sababta ugu weyn ee ayba u weynayso maalintan waxay ku sheegtay inay ciyaaraha feerta u aqoonsatay ciyaaro caalami ah oo aan caadi ahayn inkastoo ay jirto maalin u eg maalintan oo dana gaar ah ama gooni ah ay kala yihiin dadyo kale feerku wuxuu maray taariikh aad iyo aad u dheer uu soo kufay oo soo kacay ilaa heerka maanta uu taagan yahay uu soo gaaro oo uu dunida dhan aan ka noqdo waxa isweydiin mudan sidee buu feerku uga duwan yahay ciyaaraha kale feerka يا بالله goormeese ayuu bilowmay halku ka bilowmay shuruucdiisa hadda sidee uga duwan tahay shuruucdiisii qarniyo ka hor ma jirtaa ciyaaraha feerta xilli labada feeriyaan ilaa mid nafta ka baxdo uu socon jiray dagaalka hadda waxaa laga yaabaa inaad aragtay feeriyahanada oo gacmaha gloves ama injir ku xirtaan weli mis weydiisay ilaa goormee ayuu jiray injirka ama ma jiri jirtay xilli gacmo maran ama duubka gacanta oo kaliya la isula tagi jiray reengaha dhexdiisa maxayna kula tahay in loo dhaxgalo reengaha intaas iyo in ka badan aad isweydiin kartaa laakiin feertu ama boxingka intaas oo su'aal ah xitaa haddaad hesho jawaabahooda weli waxaad ogaataa in uu intaas ka qoto dheer yahay si walbaba qaybteena koowaad waxaan ku soo bandhigi doonaa taariikh gaaban oo ku saabsan feerta guud ahaan feerta qaybta koowaad ciyaaraha feerta waxay soo ifbixeen xilligii naxaasta ama afka qalaad waxa lagu yiraahdo bronze age waa maxay bronze age ama waa maxay xilligii naxaasta bronze age waa xilli aad u fog ilaa 3100 sano ka hor dhalashada nabi ciise alayhi salaam oo waagii ugu horeysay aadamuhu uu bilaabay inuu isticmaalo curiyaha birta si uu uga samaysto aaladaha wax jara ama weelasha sida seefta midiyaha ama weelash wax lagu cuno aan si socon hadaba waa halka xilligan aadka u fog lagu arkay isticmaalka feerta sideena noogu suurta gashay inaan ogaano taariikhda sida u dheer take it easy dalalka Iraq iyo Syria ayaa lagu arkay farshaxano muujinayo laba nin oo feertamayaan markii dib loo baarayna waxa la ogaaday in xilligaas aadka u fog feerta la isticmaali jiray waxa kaloo farshaxankan laga dheehan karay in ay gacmaha maro ama bataajo ugu dubnaayeen sida maanta aan arki karno inay feeriyahanada xirtaan gloves ama injir sababta ugu weyn ay tahay si loo badbaadiyo lafaha gacmaha ee duubka faraha markay tuurayaan feerta laakiin ka waran bal ciyaar aad u soo daawasho tagtay haddii hal daqiiqo ay ku idlaato maadaama gacmo maran la isula tagay halkaas waxaan ka fahmi karnaa in laba laf la isku dhufto ay ka dhaawac badan tahay marka injir ama maro ama bataajo la xirto si kastaba ciyaaraha feerta waxay ku sii baaheen dalka Greega oo lagu xusuusto inay si rasmi ah ay ugu biireen ciyaaraha Olombikada inkastoo shuruucyada ay ahaayeen kuwa aad u qalafsan ama u arxan daran tusaale ahaan shuruucda kuma wajirin wax la dhaho knockout sida darteed waxa dhici jirtay inta uu qof ka raynayo oo qofna wadi ka weynayo inuu dagaalka socdo ilaa qof guusha ka raacdo taasoo ah cagsiga shuruuda la isticmaalo maanta xilliyadaas aadka u fog marka horyaalada feerta la qabanayo feeriyahanada looma fiirin jirin culayskooda caafimaadkooda iyo badqabkoodaba sida awgeed waxa dagaalami jiray qof aad u culus ama xoogan iyo qof fudud ama tabaryar iyadoo aynan jirin wax naxariis ah ama ka qabasho ah haddii xitaa si xun loo tumayo qofka middan ayaa keentay in maanta ay jirto weight class ama in la isku toosiyo feeriyahanada isku culayska ah kadib markii in badan waxyeelo naf iyo dhaawacba soo gaareen dagaalyahano far badan ugu dambeyn qaabka ay u istaagaan feeriyahanada oo lugna horay u soo baxsadaan midna dib u dhigtaan sidoo kalena gacanna ay kor u qaadaan si ay u difaacaan madaxa midna ay ku feertamaan ayagoo waliba isweydaarsanayo ayaa tababarada kamidka ah ciyaaraha feerta oo ilaa qarniyo ka hor la soo isticmaali jiray ilaa maantana muhiim ka ah ciyaaraha feerta qaybteeni koowaad ee taariikhda feerta halkaas ayaan ku joojinaynaa la soco qaybta labaad